waqtiyada ka mid ah waxaa jirtay gabadh saalixada oo mu'minada oo wanaagsan oo Ilaahay ka cabsata subxaanahu wa tacaala. Gabadhaasi muddo kadib waa ay guursatay. Muddo 5 sano ah ayaa ay sugaysay ilmo Ilaahay inuu siiyo. 5taas sano ee ilmuhu ka maqnaa waxay mar walba Ilaahay ka baryi jirtay subxaanahu wa tacaala in Ilaahay ubad khayr qaba ku arsaaqo. waana asluubka looga baahan yahay qof kasta oo mu'min ah oo ah inaanu Ilaahay kaliya weydiisan ubade أو كدر إله أبد في عنسي إلهي ugu dambeyntii gabadha wuxuu ku harsaaqay wiil aad ayaan ugu farxay laakiin nasiib darro in yar kadib wuxuu Ilaahay oofsaday ninkeedii oo geeriyooday markii ninkeedii Ilaahay oo qaatay ee Ilaahay oofsaday waxay go'aan ku gaadhay inaan nin dambe gursan inaanay nin dambe gursan oo ay kurisato wiilkeedaas aad ayay wiilkeeda u jeclayd aad bay u kulkoolin jirtay markasta oo khalad galo ma ciqaabi jirin waa ay u caqli celin jirtay walaalkeedii la dhashay oo wiilka abti u ah marka wiilkeedu khalad sameeyo waxa ku aanin jiray inaanay wiilka edebta ka xumeynin ee ay ciqaabto markuu khalad sameeyo yadna waxay oran jirtay markuu weynaado ayuu qaran doonaa imika waano ayuu nagu leeyahay maadaama uu agoon yahay wiil yarna yahay waxba hadayna kugu daalin muddo 5 sano markuu wiilkii 5 sano gaadhay ayaa ay u geysay nin sheekha oo quraanka bara wiilkii yara waxa uu noqday mid madax adag oo aan lagu karin waxbarashada hooyadii waxay bilowday inay ku sasabto lacag oo ay tiraado hadaad quraanka soo dhigata maanta lacag baan ku siinaya wiilkii isagoo lacagta darteed u tagaya ayaa markasta hooyadii lacag ka qaadan jiray si uu aado meeshaas ujeedka ugu weyn oo leeyahay ay tahay in lacag la siiyo marka lacagta loo diidana aanu tagin wiilkii waa uu weynaaday 20 sano ayuu gaadhay 20 sano kadib wiilkii waxa uu hooyadii ku wargeliyay inuu dhoofayo amba wadanka ka tagay oo wadanka kala tagayo hooyadii aad iyo aad bay uga murugootay arintaa wayna ka hortimatay waxay ku tiri hooyo waad ogtahay sidaan ku jecelahay iyo inaan la'aanta noolaan karin iyo inaan weligii adiga dartaa guursan وأنا أذيك اللي ذاك كوريناي إن كأكتو الأكتر ذاك مقطع آذو جعلها هي يقتي بل سويل كي واحد ويدي كقنعيه وكوس الصبي إنه صار شقي صندونه كدبنا أو صار لعبان دونه ودي ويكا قلاطي دي بدأ يوضافي مركي أو ضافي ويدي لما سهل جري ويدي مر والبا وراقا يدري جرتي إسنا دف ينادب بوقس الجواب جري hooyadii way fikirtay markii dambe ilaa wiilku yaraantii ayuu bartay in marka hooyadii wax uga baahataba inay lacag siiso oo lacag kaga bedesho hooyadii waxay ku tiri shaxbay soo dejisay hooyadii waxay ku tiri maalinkii dambe warqado qortay aabaha dhaxal fara badan ayaa uu ka tagay dhaxalkii iyo lacagtii aabaha ka tagay ayaan ku soo dirayaa fariintii ka soo jawaab isagoo lacagtaasi daneynaya ayuu hooyadii kulba u soo jawaabi jiray nasiib darrasi hooyadii dhaxal oo aabi uga tagay uma soo diri jirin gurigii ay ku nooleed ayaa ay iibisay isaga dartii si ay codkiisa u maqasho alhooyo wanaagsana wakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi markii ninkii saxaabiga u yimid ku yiri man xaqu an-nas bi husni sahabati dadka yaa u xaqnimo badan إن الله صاحبه النبي يقول صلوات الله والسلام عليه أمك صدح مربو هويدا مركي أفراد بو أباها بوس كفرات كلي هويدا أبا حقو لي حضن ياكو حيقا حدن هويدا مر أفراد النبي يقول أباها بوس كفرات صوفر سناي هويدو ساسي وناك سنتحي سي أي ويل كيدا قشعت كيسا أيا أي قوري حراشت أمر بالعبود جرتي سيقول صهل lacag bay markasta u diraysaa si ay ula soo hadlo lacagteedin wali mays wax maalmo wax la dirayo weeyaane lacagtii way dhamaatay wiilkii codkiisii waa goostay markii uu lacagtii waayay codkiisii waa goostay hooyadii maadaama gurigii iibisay walaalkeed ayay gurigiisii uga tagtay gurigii walaalkii ayaa ay ku laabatay oo la nooleed waa ay xanuunsatay habeenada kamida ayaa ay saqbarkii ama saqdi dhexe ayay toostay إلا وبرجي أي إلهي بريسي وهن أي أفكار جبسطي وحي كدو عايسة إلهي بريدي إن إلهي ويلكي دوسو هديو
qalbigiisna ilaahay xaggeeda u soo jeediyo qalafsanaanta iyo mataqaan naxariis darrada ku jirtana in ilaahay jacayl iyo maxabbo ilaahay ugu bedelo muddo kadib waxay ducadaa waday hooyadaasi muddo 6 bilood ka badan ee saa u ducaynaysa 6 bilood kadib wiilkii ayaa soo noqday oo wadankii ku soo noqday markii uu soo laabtay ayaa uu abaaray oo u jahaystay dhankii gurigoodu ka xigay markii guriga albaabkiisa ku garaacay nasiib darrase nin baa ka furay ninkaa ka furay wuxuu weydiiyey aawig hooyaday wuxuu ugu jawaabay hooyadaa guriga way iibisay anaana iga iibisay lacagtii guriga ay ku iibisay macal alaabtii guriga taale lacagtii ay ku iibisayna meel ay marisay ma garanayo hadda waxay la nooshay walaalkeedu abtiga ah wiilkii orod ayuu cagaa wax ka diyey xaggii gurigii abtigii ayuu u jahaystay muddo kadib gurigii ayuu gaadhay waxay ugu tegay hooyadii laabta ayuu geliyey uu ooyey markaasuu wuxuu hooyadii ka codsaday inay cafiso hooyo wuxuu yidhi ducadaadii aad ii soo diri jirtay baa isoo gaadhay ducadii aad ii soo diri jirtay ayaa isoo gaadhay ilaahay waa isoo hadeeyey wax waliba oo kaa lumay aniga dartee kaaga lumayna sauciiduki waan kuu soo celin doonaa waan ku abaalguri doonaa hooyo oo waan kuu soo celin doonaa oo ilaahay lacag iyo hantibu ilaahay siiyey waan ku abaalguri doonaa qisadan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa walaalayaal in ducadu ay muhiim tahay الدعاء مخ العبادة بالنبي صلوات الله والسلام عليه دعاء ودوح عبادته دعاء وصلاح المؤمن وهو كمؤمن دعاء وتكبد بادن يسمك كربة دلنتو دعاء وتقف سيجل سوجدنيس waxaan kaloo ka faa'iideynaa in hooyadu muhraan tahay qisada waxaan kaloo ka faa'iideysanaa in hooyadu muhraan tahay oo cid kasta inaga jeceshahay jacaylkeeda inuu yahay ugu weyn jacaylada jacaylka dhabta ah waa jacaylka hooyo wiilkeeda ama ubadkeeda ay u qabto waa mid aan duugoobin oo duruufaha iyo isbedelka waqtiga iyo xaaladuhu aanay bedelin haddii aad qof si walba isku jeceshiin waxa laga yaabaa wax yar inaad isku qabataan kadibna jacaylkii aw xumaan isku bedelo laakiin hooyada si walba u xumaato iyo si walba afka ugu taagto iyo si walba caaq ugu noqoto haddana qalbiga ka jecesha intaan qisada mid lamada ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh